kulankani oo ahaa mid ay si hufan u soo qaban qaabiyeen ururka haweenka qaranka isla markaana lagu soo bandhigay mashruuc waxbarasho oo bilaash ah looguna talagalay haweenka Soomaaliyeed oo socon doona muddo ku siman 6 bilood ayaa waxa uu maanta ka qabsoomay magaalada Muqdisho. Urur la magac baxay nabadda iyo sidoo kale tiknoolajiyada ayaa looga mahadinayaa waxayna sharaxayaan hanaanka uu socon doono barnaamijkan horumarinta gabdhaha waxbarashada qaybta oo macnaha hogaaminaysa gabadha qaybta kamid ahay haddii aan si gudugalo hadalkayga muhiimadeeda ama pointiga u baahan waxay tahay ku sheegaa maanta marka jidka aan marayo ee ku dhahdo maaman jidka garabkaaga oo taagan ee ku dhahdo lambarkan hebel ii soo bixi mise lambarka EVC-ga ku tuur way dhibtay oo sababtoo ah waa maamo maanta laakiin maanta intii oo dawladda wadankan uu burburku ku jira hadii maanta ay waxbarashadeed kuma dhihi lahayn bajaajkan lacagta ku tuur ku dhihi lahayn karnay inay bilowno program la dhahayo women literacy oo laga xoojinayo dhanka waxbarashada haweenka maadaama markii ugu horeysay ay tahay aan qabanayno waxbarashada bilaabeeno waxa is dhahnay wixii ugu horeysay oo ka bilaabi kartiin waxa waaye in hooyooyinka ka bilowdeen koos mujtamac kasta ay aragtid amisana wadan kasta oo hormariya hooyo koos hadii hooyo wax baranin cunugaad wax aad iskuul aad ma dhigto ilaan ma garanayso waxbarashadii muhiimadda ay leedahay ma garanaysid marka waxa go'aansanay inaan ka bilaawno hooyooyinka in hadda aan ku arkay dhalinyarta Soomaaliyeed waxa waaye markay wax soo bartaan nin walba wuxuu rabaa barashadu wax soo bartay inuu dhar quruxsan intuu gashto wuxuu soo bartana jidkaas uu kula xaragoodo waxbarashada marka xaraga ma gasho marka waxaana haddaan hay'addan technology for peace waxaan rabnaa inaan Allah u naxariiso madaxweynihii hore Siyaad Barre wuxuu isku dayay inuu dhanka kale gudoomiyaha haweenka qaranka Soomaaliyeed Maama Batuula Sheekh Axmed Gaballe oo iyana madasha ka hadashay ayaa waxay dhalinyaradani kaga madcelisay doorka ay ka qaadanayaan waxbaridda haweenka Soomaaliyeed si adduunka intiisa kale wax ula qaybsadaan waxayna sheegtay in haweenka la bari doono muddada 6 bilood ah tiknoolajiyada luqadda Ingiriiska qorida afka Soomaaliga iyo sidoo kale maadada xisaabta oo hablaha Soomaaliyeed inta badan ay ku wacan yihiin aad ayaa u soo dhaweyneynaa waa ku faraxsanahay dhalinyarada la soo xilqaantay dhalinyaradan Soomaaliyeed dhalinyarada ka qiirootay in ay maaragtay dalkooda iyo dadkooda wax u qabtaan oo jeclaystay inay ku shaqeeyaan lacag la'aan waa meesha ugu horeysa oo horumarka dalka uu ka bilaabanayo sababtoo ah ummadi markay fikirto oo ay ka fikirto danteeda lacag way ilowda gabdhaha tababarka ka faa'iideystay muddadu waa yar tahay waa 6 bilood laakiin 6 bilood oo lagu baro technology xisaab iyo af Ingiriis iyo af Soomaali waa runtii wax aad iyo aad maaragtay loogu farxo dhalinyarada is soo xilqaantay oo uu hogaaminayo Maxamed oo mar hore arintan ka soo shaqeysay oo noogu timid xarunta oo garatay in maanta loo baahan yahay in la barto aqoon in la barto technology inay tahay waxa Soomaaliya ay kaga gudbi karto mugdiga iyo dhibaatada waxa noo horseeday jaahilnimada keentay adduunka wax bartay adduunka hore u maray adduunka xadaaradda haysta waxa hadda aan ka hadlayno kama hadlaan colaadda la dhextaala ma dhextaalo waxay ka tashadaan ayahooda waxay u taliyaan ilmahooda waxay ka fikiraan mustaqbalkooda taa marka si aan ugu gudubno inta maanta wax baratayna oo ay maaragtay Soomaalidu ay ku haysato Cabdullaahi Cabdirasaaq Aadan Cazaani Bulsha TV Muqdisho ma ogtahay in tiifiyada Soomaalidu ay u wareegeen satellite cusub oo gaadhaya in ka badan intii uu gaadhayay satellite-kii hore qaaradaha laga daawanayo waxa kamid ah Afrika, Asia, qaybo kamid ah Europe iyo dunida inteeda kale oo looga daawanayo nidaamka IPTV haddii aad joogto Afrika waxaad ku heli kartaa si fudud hoos u yara dhigdhiishkaaga xubinta suulka in la kadib kubaad frequency-ga ku soo baxa adiga oon jihana u weecweecin dhiishka kubaad frequency-ga si aad u hesho dhammaan channeladaas mahadsanidin